soo dhawaada saaxiibayaal halkani waa channelkiin subscribe saar channelka gambalaalka furo oo noqo daawadaha ugu horeeya muuqaalada aan soo gelino bartaan YouTube-ka ah muuqaalkana like saar gacanta Ilaahay ku barakeeyay ayar like saar musiibo Ilaahay kuma tusay like saar siina sharagare oo asxaabteeda la wadaag haddaba sida aad baraha bulshada ku aragteen saacadihii ugu dambeeyay waxa isqabsaday sawirada sheekha jacaylka Sheekh Rusheeye ayaa 3 sano ugu dambeysay soo bandhigayay jacayl ila cusub iyo gabdho aad u daayar oo baraha bulshada uu sawiradooda dadka kula wadaagay Sheekh Rusheeye ayaa sida dad la xogal ogaal ah oo yaqaan ay ku sheegeen inuu dhalay 27 caruur ah hase ahaatee sanadii ugu dambeeyay wuxuu soo bandhigay lamaanayaal daayar oo dadka qaarkood ay ku xamanayeen inuu yahay dadkii uu markaasi uu quraan saarayay isla markaana biyaha dadka ku rusheynay dad kamid ah haddaba sanadkii 2019 ayuu soo bandhigay gabar da'deeda lagu sheegay inay ahayd 24 jir isla markaana uu la soo galay sawir aad u qurux badan oo laga dheehan karo jacaylka iyo romantic qaybka uu yahay isla sanadkii 2020 ayuu soo bandhigay xaaskiisa labaad taasoo qabsatay baraha bulshada gabadhaas da'deeda lagu sheegay 20 jirka balse sanadkan cusub isla maanta ayaa baraha bulshada waxaa qabsay sawirada cusub iyo xaas cusub oo uu soo bandhigay sheekhan jacaylka looga haray isla markaana kabtiisa aysan dadka xiran karin Sheekh Rusheeye oo soo bandhigay xaaskiisa saddexaad oo ayadana oo da'deeda lagu sheegay inay tahay gabadhaasi 15 jir isla markaana uu si aad ah jacaylka ugu muujinayo sawirada ka muuqata ay tahay mid indhaha bulshada soo jiidatay isla markaana ay dad aad u fara badan falcelin badan ay ka dhibteen halka dadka qaar ay ku tilmaameen sheekha inuu qaab sixir ah u adeegsaday soo xirigelinta gabdhahan haasaatay wax cadeyn oo buuxda oo taasi loo haayo midna ma jirto balse sawirada waxa laga dheehan karaa in lamaanayaashan gabi ahaantoodba ay ku faraxsan yihiin nolosha Sheekh Rusheeye haddaba manala daawada sheekh kamid ah sheekhyada ka soo horjeeda qaabka uu wax u wada Sheekh Rusheeye isla markaana jacaylada iyo soo bandhigistiisa ku sheegay inuu yahay inuu qaab sixir u adeegsado soo xirigelinta dumarka balnala daawada sheekhaas oo boorka ka janfaya sheekha jacaylka haatan loo magacaabay Sheekh Rusheeye inaan qariyaanay banaanayn dad fara badanna way soo weydiiyeen maalmahan oo dhan arrinkiisa mar haddii su-aashu ay fara badatay waxaan isku dayay anigoon cidna ka waraysan bal inaan anigu si toosa aan u ogaado aanay cid inoo dhaxay waxaan daawaday fiidiyowyada laga duubay YouTube-ka ku jira siduu wuxuu akhrinayo siduu wuxuu cilaajinayo sida waxyaabaha uu ku hadlayo uu sheeganayo aniga markaan arrinkaas sameeyay waxa ii muuqday 17 mukhalafo oo shariicada islaamka quraanka iyo sunnada khilaafsan oo ninka cilaajkiisa ku jira baalahan dadku ay ku wada xidhiidheen iyadoo carabiya baan ku qoray laakiin iyadoo Soomaaliya magaalada Wajaalo habeen dhaweyd dacwadan ku tagay oo la iga weydiiyay xadara dumarka mooyaane halkan ka hor kagama hadal walaalayaal sixirku waa jiraa ishuna way jirtaa jinku dadka inuu dureeyana waa jirta in la iska cilaajiyo la iska daweeyana waa sharci wama anzala Allahu daan illa wa anzala lahu dawaa dawada u weynina waa quraanka iyo ducada Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu wa nunzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah quraanku inuu dawo yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala sheegay nabiguna in la isku daweeyo quraanka iyo ducada way noo sheegay ruqyada nabigu waa sameeyay umadana waa u sheegay waa ku dhiirigeliye la baasa birruqa ما لم تكن شركة رقيته قفك إن قرآن أما الدعاء لقو تفا نبي الدم بملها مر هذا شيء كما رنتها يقول النبي عليه الصلاة والسلام لكن تموهم كواين لو قادو أن الرقية عبادة رقيته إلي تاي عباده تفتان قفك قرآن يدعاء لقو تفايا عبادة داسي وإن لقى إلالية ديارات وإن لقى ديجن محل التجارب تجربة لما تقلين كرو طبيغا ماديغا اما كيميكادا نقدا اما كعشابتا نقدا تجربه كسودا لكن طبيغا الشرعيغا قفك ان لو علاجيه قران iyo duco waa tawqiif isagu wax tajriba ay gali karta ma quraanka dadka marka lagu akhrinayo waxa la sameeyaa ruqya la raado ruqya waa maxay ruqya waa qiraa'ah معها نفث وقراءة تفتان الله صعبة وقفك مريض كها قفك أنت قرآن كأقرأ ما الدعاء أقرأه تفكي سو جارايو هرت تاسي ما شرته
wadaadkaasi mikrofon buu meel la fadhiyaa intaasoo boqol oo qof bal mararka qaarkood tiro ka badan ayaa garoon lagu xareeyey sameecado waaweynna waa la dhigay halkaasuu markaa aayad ama dhowr aayadood uu ka akrinaya tiifiyada qaarkoodna waxaan ka arkay mikrofonkuu ku tufaya mikrofonka waxaana la rabay tufriinku inuu dadka gaadho horta ruqyaba noqon mayso mar haddaanad qur-aankii aada akhriday qofkii mariidka aad ku akhriyeysay tufkaagu aanu gaadhin waxaa ruqyaba lama idhaahdo culamaa ulislaamna ruqyo uma yaqaaniin markaa isku dawayntii qur-aanka waxbaa ka khaldan taasi waa mid ta labaad qur-aan akhrintu aada iyo aad bay ugu yar tahay aad bay ugu yar tahay qur-aan akhrintu hadalkiisa kale iyo sheekada dadka jinku uu ka hadlayo uu la sheekaysanayo wax weydiinayo ayaa aada iyo aada uga badan qur-aan akhrinta wax qarsoonna maaha qof walooba youtube-ka galo bal adiguba keeg waad arki doonta indhaagaad ku arki doonta qofka mucaalijka dadka qur-aanka ku akrinayaan waa inuu u hagar baxo dadkii qur-aan ku akriyo arrintaana waa inuu u sabro in aayad la akriyo oo kadibna aayaddii kelmad laga soo qaato kelmad laga soo goosto oo kelmaddaasoo qura lagu celceliyaana iyaduna waa arrin saddexaad oo shareecada khilaafsan waxaana aada ugu badan inuu kelmad qura ku celcelinayo sixir 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 bal mararka qaarkood aayadda wuxuu ka soo goynayaa in macnaha bedelaysa hadal kaloo isagu leeyahna wuu ku darayaa dabeetana meeshii waxaa ka soo baxay waxaan qur-aan ba ahayn culimaduna waxay dhahaan qof marka qur-aan lagu akrinayo waxaa shardiya qadarka qur-aanka ah ee qofkaa raaqigii uu akrinayaa waa inuu noqdo qadar macno dhamaystiran samaynaya tusaale waxaan dhegaystay waana cajuus waana cajuus waana cajuus waana cajuus oo ku celcelinaya waana cajuus bal adigu macnee anigoo oday baan ahay anigoo oday baan ahay anigoo oday baan ahay hada laysa biqur'aan waa in qur'aanka haddii qayb aayad ka mida la akrinayo qaybtaasi macno dhamaystiran waa inay gudayso oo ay tusinayso markaasaa waxaa kasii daran wuxuu xagga dambe ka raaciyey waana cajuusun yaa uma sibyaan waana cajuusun yaa uma sibyaan yaa uma sibyaan qur-aanka may ku jirta kuma jirta qur-aanka waa hadal kale aayad uu qayb ka soo qaaday iyo hadal isagu sida uu dhigaayo jin qofkan ku jira uu la hadlayo labadiibaa isku xidhmaaya dabeetana maxaa soo baxaaya waxaan qur-aan ahayn baa meesha ka soo baxaaya waayo waxaa ka mid a mukhaalafaadka sharciga ah ee ka muuqda dumarka ajanabiga ka ah in xaaskiisiina ahayn maxaarimtiisiina aan ahayn ee wadaadkaasi uu taataabanayo taasina mid qarsoon maaha faryarada isagoo hayana waad arki kartaa gacmaha isagoo sidaa u hayana waad arki kartaa cunaha isagoo ku dheganna waad arki kartaa wahada laa yajuus waa dembi arrinta noocaasi xaadiidii nabiga calayh salaatu wasalaam khilaafsan nebigu wuxuu yihi calayh salaatu wasalaam sida tabaraani uu wariyey la an yuطcana fii ra'si